Soomaaliya waxay ku taalaa meel muhiim ah adduunkana muhiim u ah laakiin waxaad moodaa hadda inay ahamiyadeeda soo baxayso waxaadna aad u sii ogaanaysaa markaad tiri xilka madaxweynaha rabaa Soomaaliya waa horaantii bishii February 2017 intii uu ku guda jiray hadal jeedintiisii baarlamaanka iyo soo bandhigistiisii barnaamijkii isku tashi musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wuxuu qodobka saddexaad ee khudbadiisa ku qaadaa dhigay ahmiyadda uu dalkeenu u leeyahay guud ahaan dunida iyo danaha siyaasadeed ee nagu xeeran siyaasadda bariga dhexe iyo markasta siyaasadda gobolkan ee geeska Afrika ku xiranta siyaasaddii gobolkii dhexe waxay noqotay mid la isaga baxay awooddii siyaasadeed ee garantoorka ka ahayd ee daaminka ka ahayd ee bariga dhexe siyaasadeeda ku dhisneed dawladda Mareykanka dawladda Mareykanka ayadaa go'aansatay inay si tartiiba uga siibato bariga dhexe marka xoogag tartamaya ka soo baxay oo Iiraan u weyn tahay Turki dhinac taagan tahay Sacuudi oo la sunniga islaamka hogaaminaya iyo wixii raacsan wixii lamid ah tartankaas ka jira bariga dhexe wuxuu ku soo gadoomay geeska Afrika ayadoo awalba geeska Afrika oo kamid ahaa meelaha ugu xasaradaha badan gobolka adduunka ugu xasaradaha badan saddex meelaha la sheegaa waa halkan geeska Afrika anaga aan deganahay Balkaniska iyo bariga dhexe tartankii wuxuu keenay in lagu tartamo Soomaaliya in kama qarsana inta dawladda rabta inay Soomaaliya military base ka hesho ama military meel saldhig military ka hesho ma qarsana loolanka taagan ma qarsana dawladaha jaarka ee sida qaawan ugu tartamaya doorashada Soomaaliya mid qarsan maaha haddaba iyadoo laga duulayo la falgelidda culaysyada soo rugmaday iyo caqabadaha maanta taagan waa kuma hogaamiyaha uu dalku u baahnaa 4 sano ka hor laakiin maxaan u baahanaa haddii Sacuudi iyo Iiraan iyo Turki iyo Qatar iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Masar iyo dawladaha gobolka dhow iyo gobolka fog oo dhan ay ku tartamayaan awoodda Soomaaliya ay ku tartamayaan iyo qof walba inuu Soomaaliya ka helo meel uu salka dhigo waxaan u baahanahay hogaamiyaha marxaladda soo socda imaadona inuu noqdo hogaamiyadiisa furan inuu noqdo hogaamiye miisaani kara geopolitics-ka lagu hareeraysan hogaamiye ka warqaba loolanka siyaasadeed ee gobolka dhow kan dhexe iyo ka fog ka dhaxeeya ee Soomaaliya ku jiraysa ma aha hogaamiye meeshii looga yeedhay dhagtiisa maqlay ma aha hogaamiye qariska tuur inuu noqdo oo qariska tuurnimada waa wixii diiray diblomaasiyadda Soomaaliya 60 sano la soo dhaafay mana aha hogaamiye inuu noqdo iska hiiraacayo oo meeshii looga yeero farta looga fiiqi tagayo ma iyo waxa la yiraahdo wixii saxiix la yiraahdo qalin ku jiiday wuxuu u baahan yahay hogaamiye isku miisaami kara danaha kala duwan ee gobolka iyo midda adduunka isku miisaami kara inuu yahay ayaa loo baahan yahay isweydiintu waxay tahay Soomaaliya ma heshay hogaankii tilmaamahaas ku suntay doorashadii dhacday 8 February warcelinta weydiintaas waxaan u deenaynaa shacabka Soomaaliyeed hase yeeshee way caddahay in weli dalku uu taagan yahay kala bayr halis ah oo ay lama huraan tahay in loo helo hogaamiye hal door ah oo hirgeliya yiigsiga iyo himilada shacabka taasina waa arrin alla ka sokow gacanta ugu jirta mudanayaasha baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane marwo xildhibaan waxaa ku hortaala fursad uu baarlamaankii 11aad dayacay ee fadlan dalka dadka iyo dawladnimadaba ugu hiilay codkaada adigoo garab istaagaya hogaamiyahan mabda'a aragti toolmaanaanta adkaysiga iyo fogaan aragga ku sifoobay si dalka looga dulqaado dandarrada daranyada iyo diihaalka muddada dilootay